bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada saaxiibayaal mar kale waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay su'aashan badanaa waxaa dhacdo qofka marka ay maskaxdu daadato inaad dadweynaha ka maqasho su'aalahan sidee ayuu u noolaanayaa qof maskaxdii daadatay haddaba barnaamijkeenna maanta ayaan ku dul istaagaynaa maskaxda iyo shaqooyinka ay qabato halkay jidhka kaga taalo intay u qaybsanto iyo qaybo kaloo badan balse marka hore daawada shaahaaga soo qaado muuqaal kalen layg noo saar haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir mahadsanid bani aadamka jidhkiisu wuxuu ka kooban yahay 3 xuub sare xuub dhexe iyo xuub hoose xuubka dhexe waxaa ku jira lafaha iyo murqaha iyo uurku jirtoo dhan xuubka sare waxaa ka beerma maqaarka iyo sidoo kale maskaxda haddaba maskaxda waxaa la shaqeeya neerfayaasha iyo sidoo kale xangulaha xanguluhu waa qayb ka mid ah maskaxda wuxuuna dhex maraa lafdhabarta ilaa laga gaadho lafta loo yaqaano dabagibinta lafta marka la gaadho waxaa shaqada la wareegaya neerfayaashii oo iyaguna qabta shaqada inta dhiman waxaa jira 2 shay oo qaali ah waana xangulaha iyo sidoo kale maskaxda sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku xidhay oo dahaadh uga dhigay lafo xanguluhu wuxuu dhex maraa laf dhabarta sidoo kalena maskaxdu waxay ku dhex jirtaa lafo xididada laftarkooda ilaahay wuu ilaaliyey oo waxay hoos maraan murqaha inkastoo ay bannaankaba u soo baxaan mararka qaarkood maskaxdu ma aha naftii laakiin waa meesha maamusha jidhkaaga oo dhan wax kasta oo aad qabanayso waxay ka yimaadaan maskaxda waxaa jira unug la dhaho niyuron unuggaasi waa askariga ama maamulaha unugyada maskaxda ka shaqaynaya in ka badan 100 bilyan oo unug ayaa lagu cabbiraa niyuronka waxaana jira unugyo kale oo la shaqeeya waxaa jira unugyo kale oo la dhaho gilyan oo shaqaale u ah unugyada niyuronka shaqooyinka ay u qabtaanna waxaa ka mid ah inay qaboojiyaan qashinka ay ka guraan iyo shaqooyin kaloo badan unugyadan ayaa sidoo kale iyaguna aad u badan oo weliba ka badan unugyada niyuronka unugyada niyuronku waxay qabtaan shaqooyin badan mid walibana waxbuu qaabilsan yahay tusaale ahaan mid baa hadalka qaabilsan mid baa socodka qaabilsan mid kastaaba waxbuu qaabilsan yahay qayb ishu ma qabato qaybaha qaarna dherarkoodu aad ayuu u dheer yahay murqahaaga hadda waxaa maamulaya unug gaar ah muruqaagu ma shaqaynayo ilaa unuggaasi maskaxda ka soo amro waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso unugyadan la sheegaya xaggay ku jiraan unugyadu dhammaantood waxay ku jiraan maskaxda sidoo kale waxay kala leeyihiin godad u kala gaar ah god kastaa wuxuu qabtaa shaqo goonni ah tusaale iminka haddaan ku imaado oo ku dhaho magacaa markiiba waxaad fahmaysaa su'aasha lagu weydiiyey inay tahay magacaagii dabadeedna waxaad ii sheegaysaa magacaagii shaqadan yar haddaan sharaxno markii u horraysay ee aan ku weydiiyey magacaaga qayb maskaxdaada ka mid ah oo loo yaqaan qaybta hadalka ayaa waxay qabatay su'aashii la weydiiyey su'aashii markay fahantayna waxay u wareejisay qaybta jawaab celinta isla markii ay fahantay waxa la weydiiyey inuu magacaagii yahay kadibna waxaad bilaabaysaa inaad si degdeg ah u jawaabto adiga oo sheegaya wixii lagu weydiiyey dabcan waagii hore markaannu imtixaanka gelayno macallimiintu waxay nagu odhan jireen fahmu su'aal nisful jawaab su'aashood fahantaa waa jawaabta badhkeed maskaxdu markay shaqo samaynayso way fekertaa kadib ayay maskaxdu go'aan qaadataa balse waxaa jira xilliyo aysan maskaxdu feker samaynin oo si degdeg ah go'aan u qaadato tusaale iminka markaad soconayso kama fekeraysid inaad lugta bidix mar qaaddo marna lugta midig qaaddo balse taa beddelkeeda maba sheegi karaysid hadba lugta aad horraysiinayso waa hab ilaahay ugu talagalay shaqadeedana adigu waxba kama ogaan kartid waxaa kaloo jira xilliyada argagaxu jiro maskaxdu si degdeg ah ayay go'aan u qaadanaysaa weliba iyadoo aan la marin habkii go'aan qaadashada tusaale adiga oo soconaya ayaad god ku soo baxday maxaad samaynaysaa dee waad boodaysaa qofku marka uu boodayo intee xubnood ayuu dhaqaajiyaa gamcahaaga lugahaaga iyo jidhkaaga oo dhan ayaa wada boodaya lana soco xubin kasta oo jidhkaaga ka mid ah maskaxda waxay ku leedahay god goonni ah ama meel ay ka amar qaadato maskaxda dhexdeeda waxaa ka shaqeeya unugyo saan hore u soo sheegnay sidoo kale waxaynu soo sheegnay shaqooyinka kala duwan haddaba waxaa jirta shaqooyinka qaybo isku xidhan sidee ayay markaa u wada hadlayaan unugyadii kala qaban jiray shaqooyinka kala gaarka ah waxaa jira dareerayaal ilaahay kala dhex dhigay unugyada dhexdooda marka ay wada xidhiidhayaan unugyadu waxaa soo dareeraya dareerahaas isaga oo markaa si toos ah u wargelinaya unuggii kale sidaa ayay isku fahmayaan unugyadii si wada jir ahna u wada shaqaynayaan sidoo kale waxaa jira wax la dhaho hormoonku waa dheecaankan waxaa soo daaya qanjidho ilaahay jidhkeenna ku beeray dheecaanadaasi waxay la shaqeeyaan maskaxda oo qofku markuu qaan gaadho dheecaan ayaa jidhkiisa ka yimaada
dheecaankani hore ugama imaan jirin balse waa dheecaan Ilaahay xilligaa ugu talagalay sidoo kale qofka maskaxdiisu way ka sii siyaadaysaa intii hore oo qofkaasi haddii uu markiisii hore iska ciyaal xaafad ahaa wuxuu samaynayaa inuu bilaabo labis sidoo kale ciyaalkii yareeraa ee uu kubadda la ciyaari jirayna si ayuu isaga weynaysiinayaa haddaba saaxiibayaal maskaxdu waa cad hilib ah oo ku dhex jira madaxaaga waxaana maamulo unugyadii aan soo sheegnay shaqooyinkana waxaa fuliyey xididada oo soo qaada amarkii maskaxda markaas ayaa gacantii ama afkiina ay qabanayaan shaqadii la soo amray haddaba shaydaanku wuxuu dhex marayaa xididadaada sida rasuulku inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam isagoo raba wax kasta oo aad qabanayso inuu ku yeesho saamayn ama talo waxaana jira hal jumlad oo aad kaga badbaadi karto shaydaanka iyo sharkiisa sida rasuulku inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam waana acuudu billaahi min ashaytaani arajiim saaxiibayaal maskaxdu waxay u samaysan tahay qaab lakabiye ah oo iskor saaran waxaana ku xidhan lafo oo Ilaahay lafaha ayuu ku ilaaliyey waxayna ku taalaa meesha ugu sarreysa jidhkaaga yacni madaxa sidoo kale waxay ku dhex jirtaa biyo yacni maskaxda waxyaalaha lagu ilaaliyey waxa ka mid ah inay biyo ku dhex jirto maskaxda miisaankeedu waa 2 kiilo waxaad isweydiinaysaa biyuhu maxay ahaayeen wax kale ma ahan maskaxdu way shaqaynaysaa dabcan wax kasta oo shaqaynayaana waxaa lagu yaqaanaa inay kulayl sameeyaan markaa biyahani mar waa u nafaqo mar kalena waa u qaboojin kobcinta maskaxdu waa muhiim maskaxdu waxay kobcdaa mar kasta oo ay shaqo qabato waa ay sii kobcisaa bal aynu si hufan u eegno waxyaalaha kobciya maskaxda nafaqada oo aad kantarooshaa adiga oo ka dheeraanaya sonkorta aadnaha uga wada dheeraanin iyo sidoo kale nafaqadaada oo aad ka ilaaliso hoos u dhaca yacni inaad hilibka oo kale bishii mar cunto saasaa fiican jimicsiga iyo xarakaadku waa waxyaalaha lagu kobciyo maskaxda mar kasta oo aad hawl badan qabatana waxaa kuu fududaanaysaa inaad noqoto qof firfircoon laakiin maanta dhalinyarteennii waxay rabaan inay maalin oo dhanna hurdaan habeenkiina kursi ku fadhiyaan maskaxdaada adaa dilaya walaale nasashadu daalka jidhkaagu hadduu bato waxaa kugu yaraanaya fahamka iyo waxbarashada markaa waa inaad leedahay wakhti nasasho hurdadu waxay kuu sahlaysaa inuu jidhkaagu mar labaad iscusboonaysiiyo laakiin haddii hurdadu kugu yaraato waxaad ku sugan tahay halis caafimaad darro ugu yaraan waa inaad heshaa 8 saac oo hurdo habeenkii ah soonka iyo sidoo kale cuntada ood yaraysaa waxay furtaa fahanka iyo sidoo kale xifdiga arrinkanna waxaan ka baranaynaa saxaabiga Abu Hurayra radiyallahu canhu nafta waa inaad carbisaa oo haddii da'daadu weynaatay waa inaadan isdhigan ee aad socod samaysaa dhaqdaa biyaha soo dhaansataa waxaasoo dhan waxay kaa caawinayaan inaadan luminin xasuusihii ku soo maray xidhiidhada samayso saaxiib fiican oo aad xilliyada qaarkood wada sheekaysataan isweydaarsataan xogaha muhiimka ah arrinkan markaad samaysana maskaxdaadu waxay dareemaysaa farxad iyo rayrayn maskax badnaantu waa wax Ilaahay bixiyo dadkuna isku maskax maahan qofku marka uu yar yahayna waa xilliyada la ogaan karo inuu qofkani maskax badan yahay balse waalidka oo aan ku baraarugsanayn arrinka qofkii maskaxda badnaa waxaa la moodaa inuu yahay midaan waxba kala ogeyn waxaa la sheegaa Albert Einstein inuu yaraantiisa ku dhacay maadada xisaabta taa macnaheedu waxa weeye ninka qaacidooyinka xisaabta qayb ka mid ah sameeyey inuu yaraantiisii damiin ahaa miya laakiin arrinku sidaa ma aha sababaha aad ku garan karto qofka maskaxda badan waxaa ka mid ah madax adayg kolka hore qofkan madax adaygiisa waxaa la moodayaa qof dhib badan laakiin qofkani ugu dambeyn wuxuunbuu ku takhasusaa su'aal badnaan si uu wax badan u fahmo wuu su'aal badan yahay xog sheegid badnaan wuxuu soo daliishadaa daliilo badan oo cilmi ku salaysan gooni joogga oo ay jeclaadaan wuxuu aad u jecel yahay inuu maskaxdiisa la sheekaysto laakiin arrinkan habadsan waayo shaydaanku waa meelaha uu dadka u soo galo iyo sidoo kale safarka lugta ah oo aad dal ama magaalo ku marto uu ka saamayn badan yahay ka aad ku safarto gaadhiga ama diyaaradda waxaadna baranaysaa wax badan intaad safarkaaga ku jirto marka dib loo eego dadkii cilmiga diinta iyo sidoo kale kuwan maadiguba waxaad ogaanaysaa inay dhulmareenna ahaayeen haddaba muuqaalkeenna halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa intaan muuqaalkan ka xiisa badan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo